boqorka waa la hadalnay cod baan kula hadalnay telefoon baan kula hadalnay waxaan oran karnaa waa boqorka geeska Afrika noolow baan ku leenahay horna wuu ahaa haddana wuu laba jeer jibaaray waa laban laabay baan ku leeyahay waa wada hadalnay baagtaanu noo soo diray qarbadyadan baabuurtana waa noo keenay boqor cismaan aw maxamuud maxamed boqor cismaan buurmadow oo duruufta biyalaanta la qaybsanaya dadka deegaanadan iyo sidoo kale dadka soo hayaamayba ayaa waxa uu deeqdii ugu badnayd oo gaadhaysa 100 booyadood bixintooda ka bilaabay deegaanada degmada Cilaf Weyn waxaana bixinta deeqdaasi oo 4 cisho ugu dambeeyay si xidhiidh u socotay deegaanada degmada Cilaf Weyn iyo degmada Darar Weyn ee gobolka Sanaag halkaasi ku reeyay oo cabay xoolaha iyo dadka soo hayaamay ee deegaanadaasiba degmada Darar Weyne waa yeelkooda iyo cuqaashooda iyo waxgaradkoodu waxay cod mida ku sheegeen iyagoo midaysan bulshada deegaanadaasi in boqor cismaan aw maxamuud buurmadow yahay shakhsiga kaliya ee ilaa haatan ka damqaday duruufta adag ee biyalaanta ee ay wajahayaan boqor cismaan aw maxamuud maxamed boqor cismaan buurmadow sidoo kale waxa uu dadka soo hayaamay gaarsiiyay shidaalkii ay ku cabbi lahaayeen iyo qarbada aad u waaweyn kuwaas oo biyaha ku kaydsan doonaan isla markaasina ka cabbi doonaan xoolaha iyo dadkuba waayeel u hadlay dadka soo hayaamay waxay cod dheer ku sheegeen in boqor cismaan aw maxamuud maxamed boqor cismaan buurmadow ugu suntan yahay taariikh adag oo ay abaartu baday oo uu kala soo dabaashay uga mahadnaqaynaa boqor cismaan buurmadow ilaahay cimrigiisa ha raajiye ayaanu halka ku maqnaa mahadda ilaahay ba iskale marlabaadka isagaanu mahadnaqaynaa wax la yidhi halka waa la ogyahay dawladda iyo shicib ganacsato dawlad maxaan ku idhaha cid walba waa nagu qaylinay wax dadkiisa xusuustay oo ilaahay u soo diray boqor buurmadow waxaanu leenahay cimrigaaga ilaahay ha raajiye caafimaadna alla ku siiyo dadkii waa adigaa arkaya waa la cabbayaa biyi waa durdur maatay iyo xoolaba waa la dhergey ilaahay iyo maantii horena waanu ogeyn oo soo guurtadii dee biyihii aad siisay waanu ogeyn ilaahay mansaanka xasanaadda allaha kuu geliyo waxaanu leenahay cidna ceello uma qodna awalba dee afkaa laysku canfjarafaynayay nin waliba wuxuu ahaa waa la og yahay waxaanu leenahay guntiga dhiisha iskaga dhig ilaahay miisaanka xasanada ha ku geliyo ajar iyo xasanaad allah ka siiyo adigana cimri dheer iyo caafimaad baanu kagu ducaynaynaa waxaan jaamac Ali Liibaan waxaan joogaa Darar Weyne waa lagu nabadgelyo qabaa deeqdii biyaha ahayd uu soo diray boqor cismaan buurmadow way soo gaadhay ilaa iyo dhowr iyo 20 booyadood oo biyo ah bay haddeer marayaan dadku waa ku ladnaaday waa la cabbay xoolihii iyo dadkiiba laga dhergay biyaha waxaanu leenahay biyaha sidii riigii u jabay riigaasoo isagoo bed qaba dawladdu furfurtay waxna ka xumaadeen sidii u jabay wax kale oo bini'aadannimo ah ma hayno aan ahayn biyaha boqorku soo diray waxaan leenahay dawladda oo aanu badan u qaylinay way ka dhagaadagtay inay dadka oo manaha jooga isku soo hayaamay 10 gobol ee Soomaaliya ka kala yimi intooda badani dadka abaartu keentay ay tahay wax allaale waxay ku darsatay iyo waxay soo gaarsiisay midna ma jirto surmi wax baqti ku dhow mooyaane wax yidiilo ku jirto aan lahayn ayaa biyaha in soo gaadhay wax kale oo na taakulaya oo noonaxa oo na ogna ma aanan arag waxa weeye boqor cismaan buurmadow cimrigaaga allah raajo caafimaadkana allah kugu roonaado deeqdana allah kugu roonaado maalintay ahaatana makaanka jannada allah ku furo ina haysiiyay inta kadib waxaanu mahadnaqaynaa boqor cismaan buurmadow oo soo gaarsiiyay Darar Weyne iyo nawaaxidiisa deeq biyood dadkii soo guurtada ahaa ugu deeqay biyo iyo agab markii xigtay ee uu jabay ceelkii Darar Weyne dadkii deegaanka ku ahaa Darar Weyne iyo ciddii ku soo guurtay ee uu deeqda hore u fidiyay labadaba soo gaarsiiyay deeq biyood waxaanu leenahay cimrigaaga iyo caafimaadkaaga ilaahay ha ku barakeeyo
deeqda aad la baxdayna xasanaadka maalinta qiyaamaha ilaahay miisaanka xasanaadka ha kuugu daro waxaannu ku leenahay waa kuu mahadnaqaynaa boqor cismaan buurmadow cid kaloo aannu haynaa ma jirto dawladdii dee somalilan waxa weeyaan qayladhaantii reer darar weyne malaa way dee waxaan u malaynayaa inay ka dhagaadaygeen dee tanu meel laga dhagaadaygo maaha bakhti baa yaallay cid kale oo dee u damqanaysana ma hayno waxaannu ogaysiinaynaa somalilan inaan darar weyne naxariis aanay u haynin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdifataax kaahin faarax oo geerjila ah oo ka soo hayaanay magaalada la yidhaahdo qurlugud halkaasoo geelashii ay ku oodeen oo darar weyne agtiis halkaasoo imminka maanta naloogu waraabinayo booyada naloogu keenay boqor cismaan buurmadow uu soo waraabiyo biyaha halkaa xeradiisii ugu keenay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa iminkana boqor waxaannu ka codsanaynaa inuu biyaha uu noo sii laba jibbaaro halkaa uu noogu sii wado noogu waraabiyo dadweynaha kale ee biyaha noo siiya waay ciddii kalena soo caawi karta ee dawladda somalilan waxaannu leenahay iyadana waannu u baahannahay ciddii waxna tari karta xaaladda amarjensiga degdegga ah waxaa ka hawlgalay oo ilaahay isugu soo dhiibay boqor cismaan buurmadow aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa uguna mahad celinaynaa deeqdaa biyood waxaannu dareen qabnaa inaanay ma aha markii koowaad waxaannu dareen ku qabnaa ilaa saraar ilaa soolgeriye inuu hawshaa ka wado boqorka biyood waxa aannu leenahay ummadda tan maanta hal shaqsi baa waraabinaya xukuumadina waddankay ka jirtaa hal shaqsi baa waraabinaya xukuumadina waxay ka jirtaa waddanka arrin aad loo qaadan karo waa weeye waxaannu u diraynaa hambalyo nasiib wanaag maasha allah isagoo ceelkii naga jabay maanta ayuu noo soo diray biyaha dee waxaannu leenahay lama odhan karo boqor somalilan iyo boqor soomaaliya waa boqor soomaaliyeed waannu u hambalyaynaynaa ilaahay wax khayr qaba ha ugu beddelo biyaha uu noo soo diray maasha allah waa arkaysaan maanta waxaa hoganaya dad iyo duunyo wax noogu xumaa dameerahan baqbaqtiya iyo magaalooyinka gudaheeda noogu soo gelayey dee waannu u hambalyaynaynaa maasha kii yaraa ee meesha lagu yidhaahdo darar weyne laga cabbi jiray waa yimaadeen isagoo la shuuqsanayo waa jebiyeen waa ka dareereen halkiiba xoolihii 2,000 oo neef ku bakteen ilaa maalintii ilaa habeenkii cid allaale cid u maqan iyo cid isweyddiisay oo somalilan ama maamulka ama dawladda ahina ma jirto waxaannu leenahay anigoo magacaygu yahay jaamac siciid axmed ilaahay sidaa uu dadka kaaga sarraysiiya ha kaaga sarraysiiyo akhir iyo iftiinkaba waxaannu leenahay cid kastoo kelibadan daawataa waa inay ku daydaan boqorku kudayashuu madan yahay waana u ducaynaynaa il caafimaad tama allaha siiyo cadowgiisana allaha jabiyo aad iyo aad baan boqorka ugu soo ducaynaynaa waxaa soo mawaashiya iyo adduun dee xasanaadkoodaaba ku filan boqor allaha kaa jaaysaaysiiyo boqorka boqor buurmadow oo nugu soo saaciday karaamkiisa biyo iyo qarbadiyo waxaannu leenahay in badan baan kuu mahad celinaynaa ilaahay baa mahadle haddana waxaan ku leenahay shaqadan aad noo qabatay ee aad noo keentay fare kama qodnaa la dhihi karaa baahida meesha taalla mujtamaca soo guuray iyo qadarta uu la egyahay qarbadiyo badan baa na soo gaaray waxaan hadda annagu aan geesaha ka taagannahay waa 2 midh inaan isku meel dhigno waxaa nagu kaliftay inaannu ku ilaalino mujtamaca deeqsiinno ayana aynan dayacmin alxamdulilaahi rabbialcaalamiin si toosa iyo si dadbanba waa kugu mahad celinaynaa boqor buurmadow adoo ah boqor soomaaliyeed oo aan ahayn boqor qabiil iyo mid shakhsi iyo mid deegaan haddaannu soo guurnay ummad badan oo soo guurtay baannu ahayn markaan tilmaamo meelaha aan ka soo guurnay ilaa iyo meesha la yidhaahdo garacad ilaa iyo meesha la yidhaahdo gaalkacyo ballibusle inta ka sokaysa khaasatan soomaalida markii la haybsanayo gobolkee tahay baa la yidhaahdaa gobolka hadduu sheegana haybu uma dhimana alxamdulilaahi rabbialcaalamiin mar labaad baan ilaahay subxaana wa tacala u xamdinaqayaa boqorkana u mahad celinayaa intaa uuna soo gaarsiiyey waxaana leenahay boqor waad mahadsan tahay deegaankan aan ku soo guurnay mujtamaca deggan waxaannu ka helnay kaalmo boqor buurmadow mooye wax kale oo bini'aadana oo haddaan halkaan nimid baahidayada naga waraystay ama naga saaciday ma jirto allah subxaanahu wa tacaala tiisa si toosa iyo si dadban habeen iyo maalinba waa ku saxnaa waa ku soo toosnaa boqorka soomaaliyeed khayr allah siiyo aamiin boqorku wuxuu noogu deeqay boqorku waan la hadalnay cod baan kula hadalnay telefoon baan kula hadalnay waxaan odhan karnaa waa boqorka geeska afrika
geeska afrikow noolow baan ku leennahay horna wuu ahaa haddana wuu laba jeer jibaaray waa laban laabay baan ku leeyahay waan wada hadalnay baagtaanuu noo soo diray qarbadyadan baabuurtiina waa noo keenay inaan xafidno oo aanu masaakiinta aanu gacanta ku hayno dad iyo dunyaba waa geelal waxa meesha maraya tiro badan qaar baan irmaanayn caana lahayn guran biyaha u karsan lahaayeen baan raadin si aan la hadalnay waa noo keenay waxaan leenahay saxaafaddaas si toosa inay ugu gudubto wixii muslimiin oo wax garanaya sida boqorka oo kale baan doonaynaa boqorkana waxaanu leenahay adduun iyo aakhiraba allaha ku liibaano